aniga waxaan ahay Amiin Caamir waxaan ka hadlaa gacanta ma tii dagaalka waa qaranka dadka qaarkood waxay ugu tilmaamaan gabayga aamusan sawiradeedu waa wax hadla oo gabay waayo aamusan marka waa sawirro qaarkood marka wax ka sameeyay siyaasadda Soomaaliya marmar waxaan tilmaamaa dad siyaasiyiin ah dadka siyaasiyiinta qabiilkay u dhasheen wax kama sheegin shakhsiyan wax ka sheegay ama aan wax u tilmaamay marka ma aha in dad u qaataan dad qaarkood in Amiin oo qabiilkaas uu neceb yahay tan labaad waxaan u dagaalamaya oo aan u soo jeedaa 24 saac aan sawiradaas isdaba joogga u soo geliyay website-ka islaanta shalay oo inay qoriyo soo gurto suuq keento oo ku iibiso canshuurta laga qaado ayaan wax ku soo bartay marka inaan ka aamusmo ayada dhulku lagu jiidayo marka sheeko oo habeen dhabeed aan ka sheekay ayaan wax yar idin ka sheegaya oo siyaasadda Soomaaliya ku saabsan waa qarankii Soomaaliya oo gaari saaran ayuu looq u dhacay marka adduunka isku yimid waxa la yiri waa in loo raadiyaa mechanic mid kasta la soo qabtaa markii loo keeno inuu baawurka sameeyo looqada ka saaro lugu furtaa wala baxaa mid kale la keenaa sanadkii kale motorka gobol kala baxaa adise u socday ninba gobol soo u siibinay marka dambe ayaa mechanic kala la soo qabtay ali yiri kana hal lagu daro halugu eego ninkan markaas mechanic fiican oo noqday baawurkii uu hagaajiyay afarta lagu ku xiray nalalkii uu shiday hortiisa waxa yaalo dhan arka gaariga markaas ninkan uu digday oo nin khatar naga saaran ninkan marka idin mid tilmaamaya qofkaas waa garan kartiin wax yar idin sheega Soomaalida wax walba wax laga dhaadhicin kara Soomaalidu way adag tahay si wax looga dhaadhiciyo marka wiil iyo aabiisi ayaa soo wada raacay wiilkii yar ayay aab Soomaaliyan rabaa dabeecadeeda inuu ogaado markay ay soo raaceen dameeray soo qaateen yarkii yar ayay dameerka fuul aabihi markuu xor waa inuu hogaamiyo yarka la leeyahay dhageyso wax dhacay waxay soo hormareen tuulo oo dad ay degan yihiin tuulada markay soo agmareen dadka tuulada joogay ay waxay dhaheen war wiilkan yar xaasana aabiisa lugeynay asaa dameerka saara yarkii marka adiga wuxuu ma maqashaa uu yiri ka dig dameerka marka ana fuulay uu yiri adiga fuulay dameerka tuulo kale mareen war adiga xaasana ay wiilkiisa lugeynay asaa dameerka saara marka labadooda ka tagi marka way lugeeyeen tuulo kale mareen markaas tuulo dadka jooga waxay war labadan toqon sano ama midkood iska fuulo dameerka labadooda marka daba fuulay dameerka tuulo kale mareen markaas waxay dadkii tuulada jooga waxay yiraahdeen war labadan xaasana dameerka muu naxariisanaya adiga markuu wuxuu yarkii u leeyahay ma qashaab waa maqluub markii yarkii wuxuu aaba dameerka xambaarna marka aniga marka waxaan aad ugu heliyaa dadka dulman saaxiibkii hadaa wuxuu yiri waxba kama sameeyna Amiin aniga dadka dulman waxyaalo badan aan ka sameeyay oo hadda tii ugu dambeysay oo ka dhacday aynaba haddii aad xasuusantihiin marka in badan oo ka sameeyay mar walba waxaan u doodaa dadka dulman waxaa jirto Soomaalidu waxay la hagaagi lahayd ومعناها حل يحق على كل جران لا دولة كستو تماغو حيلا حل أن رادينا يا هرت حقا كورة ضد حق لا هذا عوضهم على شيء كينا 4.5 أنا واحد كترنا باركوا أنا مرة تورنتو جوب
waxaan tagay meel dhalinyaro badan joogto marka dadkii ay salaamay amiin caamir islaan gadaashii taagneed waxay maqashay amiin caamir waa ninkan markaas ay tiri amiin caamir la sheegay ninkan miya wiil bay weydiisay ag taagnaa markaasuu yidhi haa markaas ay tiri Soomaaliya muuday waaba gibil cadee marka dad badan ay weydiinay caawinaa hadlo ana hadalka kuma fiicna ma mikrofoonkan ka baqa gacantan ka hadla marka hadda xoogaa waa sii barbaranaya caawa ay u daran tahay dad inta qafood hortoodan ka hadlayo aad baa u mahadsantihiin waa aad baan u jeclahay way